marka hooyadan hooyo ka xun weligay ma arkin waxay ku qaraabanaysay gabadheeda sawirka gabadheeda ku qaraabanaysay sawirka gabadheeda maxay nimanka kula sheekeysanaysay waxay iska dhigaysay gabadheeda oo 18 jir ah gabadheena maxay maba uga sheekadaan wax ay ka ogtahay ama maxay ay ka yani ay kala socoto malaha hooyadeeda waxay ku qaraabanaysay sawirkeeda أصحابتا كسر دوّا القناة كيا وعمونا كورنر حاجة جينا إن شاء الله قرية عفماد ميل وبعد جوكتان شيء كذا ما أنت أما قصة ما أنت قصة آد أولا وايد شعيل أونلاين أو إسكوب بدلي النهاية حن كل ماضي هذا هاي قف دعوين تروتا أما قصوين كهلا أما سيدو كلا دايت ميزان نمس حدد حسيسيد لبضة بتشانك واكهلي سامرك وحارجينا إن شاء الله أنا سبسكرايب ساتين جنبالي كان فروحنا إلا بين لايك إيه شير أصحابتا هذا اللي وداكتد قصدنا كما دايرينايا ما شاء الله قصدا ما تعدين بالعبايا قصدنا waxay dhacday 2006 wadanka Mareykanka waxa jiray nin la dhahayo Thomas Montgomery ninkaas wuxuu ahaa nin 46 jir ah wuxuu ka shaqeynayay warshad buu ka shaqeynayay naag buu qabay wiil iyo laba gabdhood bay u haysay marka ninkaas nin wuxuu iska ahaa oo waalid oo maxay ahayd oo ka shaqeeya meeshaas shaqadiis markuu ka soo laabto wuxuu gari jiray online chatting rooms oo meel website la dhahayo Bogo website-kaas wuxuu ku bartay gabar la dhahayo Jessie waxay ahayd gabar 18 jir ah waxay ku dhahday ninkan maxay ahayd way isbarteen markay isbarteen way iska heleen way isjeclaadeen asagana wuxuu ku dhahay magacayga waxa la dhahaa Thomas 18 jir baa ahay Jessie 18 jir baa ahay tiri school xadigta high school sanadkii u dambeeyay ahay asagana wuxuu ku dhahay anigana 18 jir baa ahay Thomas baa la dhahaa waxa ka imaaday militariga maxay ka shaqeyn jiray haddana maxay ahaado ma shaqeeyo guriga fadhiya marka way isbarteen way isjeclaadeen way iska heleen muddo isla sheekeysanayeen wax walba maxay ahaado sawirro iyo waxyaabahaas iyo maxay ahaado gifts iyo hadiyo iyo waxyaabahaas baa ka dhaxeeyay dad aad isku jecel bay ahaayeen online kan waa taqaaneen qofka haduu bilaabo inuu maxay ahaado qof online chat bilaabaan dadka yani relationship waqti badan ba gaaraya ilaa ay isbartaan dadkan markii dambe maxay ahayd sawirro isku diri jireen hadiyana oo isku soo direen laakiin wali dad is arkay ma aha markii dambe muddo markay chatkaas ama maxay ahayd cilaaqadaas ay socotay Thomas naagtiisa baa shaki markuu galay yani qofkan maanta dhan computerku fadhiya marka maxay ahayd waxba ma dhihin shub iska dhaxay maalin ba Thomas gabadhiisa baa computerka fariisatay markii computerka ay ku fariisatay waxay aragtay message baa u soo dhacay aabihi message-kii u soo dhacay hooyadeed bay u sheegtay hooyadeed baa imaatay computerka bay furtay waxaana message bay aragtay dadkan ka dhaxeeyay waxay isku sheekeysan jireen laba qof isqaba camal bay isku sheekeysan jireen xataa waxay gaartay inuu maxay ahayd Thomas oo dhaho ma guursanaysaa haa waa ku guursanaya maxay gaartay sheekadooda laakiin wali dad is arkay ma aha markii dambe Thomas naagtiisa markay aragtay maxay ahayd sheekooyinkan iyo waxyaabahan ka dhaxaysa message-yaashaas ka dhaxaysa labadan qof message bay u dirtay Jessie message-kaasi u dirtay waxay ku dartay sawir waxay ku dhahday aniga maxay ahayd Thomas naagtiisa ba ahay Thomas ninkan oo ku sheekeynaa inuu 18 jir yahay waa aabbo laba cunug leh 46 jir ah oo been iyo maxay ahayd kadaa'ib ku waday computer iyo chat wax lagu soo qoray hadal harumaysanin iskana dhaaf sheekadan marka Jessie markay aragtay message-kan way qaracantay way sadaqi weyday qaracan iyo xanaaq baa galay ninkii Thomas bay maxay ahayd message u soo dirtay waxay dhahday waad xumaysa waad khiyaantay khiyaanada ay khiyaantay waxaad istaaheshaa inaad xabis ku gashin sida ay ula dhaqantay asagii wuu naxay wuu xanaaqay isla markiina maxay ahayd uu ka xumaaday qofkan jacayl baa dhex maray labadan qof aaday maxay iskaga heleen laakiin xaqiiqadiisii maxay ahayd way ka shifantay
markii xaqiiqadiis ka sheefatay ninkan yani wuxuu ahaa nin 46 jir ah wuxuu qabto yani faraaq iyo maxaa ahayd wuxuu qabto garan waayay marka chat roomkaas isku maaweelin jiray marka qofkan markuu helay qofkan oo ka heshay oo jeclaatay oo gabar yar ah sawir waxa u saarnaa oo maxaa aad u shidan marka asagii dhan wuxuu maxaa nafsadiisa ku barnaamij inuu yahay wiilkan yarka oo 18 jirka wuxuu u diri jiray xataa sawiro oo maxaa markuu yaraa oo maxaa 18 jir ahaa oo military ka shaqeyn jiray u diri jiray marka yani asaga dhanba isku barnaamij caalankan iyo maxaa noloshan dhanba uu iska bixin jiray markuu shaadkan gabadhan la soo fariisto caalan kale iyo meel kale iyo adduun kale iyo hawo sare u mari jiray marka markii xaqiiqadiisii ka sheekantay aad bay uga xanaaqday maxaa asagina maxaa qaracan niyad jab ku dhacday Jesse intaas way ku joogsan weyday waxay isdhahdeen ama wax been ka jira ama yani waxay isdhahdeen si xaqiiqso marka waxay yeeshay ninkan asxaabtiisa sii daba kacday waxay heshay wiil oo maxaa ahayd asxaab yihiin wiilkii maxaa message u qortay waxay dhahdeen ninkaas oo magacaas leh maruna intaas jiraan nin naaqabo iyo xasmiya macluumaadkaas marka wuxuu ku yiri waa run yani nin naaqabo waa oo ilmo leh macluumaadkii buu akiidiyay markuu macluumaadkii uu akiidiyay cabaar markii isla sheekaysteen ayagiyaaba iska helay labadan qof markay iska heleen sheekadoodii way wadteen ninkan wuxuu ahaa Brian wiil oo maxaa asxaab Thomas isku meel iskala shaqeyn jireen warshad iskala wada shaqeyn jireen 22 jir waaye jaamacad buu dhigtaa warshadaasna uu ka shaqeeyaa marka wiilkan ay ka heshay wiil yar oo maxaa oo da'deeda u dhow ninkan maxaa oo beenta u sheegana way iska daysay marmarna waxay yeeli jirtay ninka way la xiriiri jirtay Thomas waxay ku dhihi jirtay I wish yani inaad maxaa been ii sheegin dad been ii sheegin lahayn asagana wuxuu dhihi jiray aniga hadda ogahay yani maxaa waxa jeclaan lahaa waqtigaas ama maxaa cimrigaas ina ahaado sida u noqdo qofka aad maxaa ka heshay marka ninkan wuxuu ogaaday saaxiibkiisa Brian inay la xiriirto masayr baa galay wuu xanaaqay laakiin maca dalik yani ayadan marmar ninkan la xiriiraysa marna kan la xiriiraysa marka kan wuxuu ogaaday Thomas wuxuu ogaaday ayadii Brian inay maxaa xiriirkooda aad u weynaaday oo rabaa inay is arkaan Brian iyo Jesse waxay ku ballameen inay maalin is arkaan oo maxaa isla fariistaan laakiin Jesse baa markii waqtigii maxaa last minute ka way maxaa waxay dhahday iga raali ahow ma imaan karo waxba ku mashquulay yani ayadii xaggeedii ka fashilantay marka uu ninkan ogaaday Thomas dadkan qofkan uu jeclaa uu rabo xataa inuu guursado inuu ninkan meel gaaban ka helay oo maxaa isla fariisan rabaan oo isla tagi rabaan marka wuxuu u qoray message oo ku dhahay Jesse wuxuu ku dhahay Brian wuu ka shalayn doonaa dhiiggiisa daadinaya wuxuu u qoray message-kaas Jesse message way akhrisay waxay isdhahdeen in iska xanaaqsan waaye marka shibba iska tir waxba ma aysan markii dambe Brian maalin waxay ahayd weekend shaqadu ka soo baxay baabuurkiisu soo fuulay baabuurkiisa markuu soo fuulay wuxuu dareemay qof inuu daba socdo darishada markuu saan u fiiriyay wuxuu arkay Thomas oo xabad wato oo rasaas buu ku furay 3 rasaas buu ku furay meeshuu ku dhintay Brian marka Brian meeshu markuu ku dhintay wuu ka tagay meeshii Thomas markuu ka tagay ninkan waa la raadiyay waxa la waayay yani waqtigii u dambeysay maxaa halkay ahayd shaqada meesha baabuurtu ku dilay maalintii weekend bay ahayd markii la imaado shaqadii loo soo laabtay waxa la arkay ninkan oo meyd askartii baa loo sheegay askartii way imaatay maxaa ninkii bay qaaday Brian markii qaaday dadkii la shaqeynaya la weydiiyay maxaa dhacay maxaa yaa isleedihiin oo xumeyn jiray yaa isleedihiin cadow ku ahaa marka dadkii sheekadii bay u sheegeen dadkan labadan nin maxaa isla shaqeyn jiray Brian iyo Thomas hal naag inay ku tartamayeen halka hashaas naag jacayl ka dhaxeeyay online marka naagtaas jirtay waa la baxay askartii waxay aadeen gurigii maxaa ahayd Brian Thomas aka wada Thomas gurigiis markay aadeen markii hore way waayeen markii dambe way soo qabteen markay soo qabteen waxa la arkay waxa daliil lagu helay ninkan waxa loo dilay hab qof military ka soo shaqeyn jiray baa loo dilay sidoo kale waxa la baaray computerkiisa markii la baaray waxa la arkay message-yada u dirayay Jesse uu ku dhahay ninkan ana dhiigiisa daadnaa marka sidii lagu xiray markii la xiray Thomas waxay isdhahaan يعني أنتي توماس آدين وحيس لهان ما دام إن كان هذا ودلي لها ودلي هذا براين قبل لي كلام إنه دلا لعضة مركب وحي أردن أسكرها هذا وحلات دري ماشي مقالة إيد جناد قبل لي جيسي وحيد جناد ويست فرجينيا
markii ay tagtay loo tagay askartii waxay aadeen gurigii cinwaankii maxay ahayd ay kasoo saareen computerka shaadka markii la aaday cinwaankii askartii baa guriga gargaraacday markii guriga gargaraacday dhacdintii ugu weyneed askarta waxaa ka furtay naag oo weyn oo guriga waxaa lahayd naag la dhahayo Mary Shield marka waxaa lagu dhahay Jessie aaway marka waxay ku dhahay Jessie way maqan tahay iskool bay ku maqan tahay markii dambe askartii si u wadwadeen hadalkii lagu keenay way soo ictiraaftay waxay ictiraaftay naagtan Mary Shield inay ahayd ayada Jessie iska dhigaysay waa naag 45 jir ayada waxay iska dhigaysay Jessie waa gabadheeda 18 jir marka hooyadan hooyo ka xun waligay ma arkin waxay ku qaraabanaysay gabadheeda sawirka gabadheeda ku qaraabanaysay sawirka gabadheeda maxay nimanka kula sheekeysanaysay waxay iska dhigaysay gabadheeda 18 jir gabadhiina maxay maba uga sheekadaana wax ay ka ogtahay ama maxay ay ka yani ay kala socoto malaha hooyadeed waxay ku qaraabanaysay sawirkeeda nimankay kula sheekeysanaysay waxay gaartay xataa maxay underwearkeeda ama maxay malaabiskeeda daaqiliga ah ay u diri jirtay ninkan ila sheekeysanaysay yani hooyo ka xun ma jirin marka naagtan lama qaban waxna laguma sameyn waxa jiray wax oo illegal ama wax oo qaanuun ah may sameeynin yani wax oo qaanuunka ama maxay dawladda ku ciqaabto may sameeynin laakiin waxa loo sheegay ehelkeedii iyo dadkeedii markay ogaadeen gabadheedii way ka xumaatay way nacday way ka tagtay gurigeedii sidoo kale naag la qabay ahayd ayadana oo maxay gabadhaas Jessie balahayd ninkeedii markuu ogaaday beentaas ay dadka ku waday wuu furay marka Mary Shield waxay ahayd naag 45 jir oo la qabo oo gabadhaas Jessie maxay ahayd 18 jirka gabadheeda ahayd marka nimankii saas ugu qaraabanaysay sawirka gabadheeda ay saaraysay dadka u diraysaa maxay ahayd waxyaabo hadal maxay ahayd hadallo xun xataa maxay dadkan nimankan kula sheekeysanaysay gabadheeda ay dhashay sawirkeeda ay ku qaraabanaysay yani hooyo ka xun waligay ma arkin markii dambe qoftaan ninkii maxay Brian Thomas ninkii Brian dila waa la xiray markii la xiray maxay ahayd oo naagtan loo sheegay uu qaraacmay ma ogeyn maxay ahayd dadkan ninkan nafta u beelay naagtan 45 jir oo maxay ahayd oo been sheegaysay waxay la mid noqotay Thomas laftarkiisa oo maxay asagana been sheegaa ayadana sidiisa camal u ahayd been bay sheegaysay naag weyn bay ahayd oo maxay reer leh oo marwe asagana nin weyn oo maxay reer leh buu ahaa labadood been bay isku sheegayeen waxaas waxay ku tusaysaa online relationship ama calaaqooyinka online-ka waxyaabo badan oo been maxay ka jira يعني محاذ لبدان قف البوح نلب كلا بو نولا تنا وحين ولاد نلش جبر هذا أو جبر محاذ سديت من جرء أو محاذ أو هاي سكول لقته أما دوسي سر لقته أو محاذ أو دير أو عطاء أو محاذ تمجع له إسكدي جيسي نلش عسين ولاد من كل شيء جيسي نسي من كانوا حلو نولا أو محاذ الناس سديت ويل سديت من جرء أو محاذ أو ملتري كشقة أو محاذ سكس باك أو محاذ مصل أو ويل يرء وحنا هذا حقيقة محاذ إن قضية أو بذار له أو المله أو محاذ ناقبه أو يعني محاذ نلو عادي إسكان نور مركا online relationship واحد له آمنة معها قصة آد محاهد عان أو إهبائهاد وحا لغا سميي دوكيومنتري فيلم waa laga sameeyay marka waxa idin soo galin doona description-ka waxa la hamaleynaa tall hot blunt in la dhahayo umaleynaya marka waxa rajaynaa asxaabta maanta qisada inaa ka hesheen maxaa ra'yi ka qabtiin igu soo qora comment-yaasha sidoo kale waxa idin leeyahay subscribe-ka dadka ugu cusub subscribe-ka saar gambaleelkana furo waxa daa jeceshiin maxaa waxyaabo oo sheekooyin aad jeceshiin inaa ka sheekeeyo ila wadaaga khayr idin rajaynaa meel walba aad joogtaan assalaamu calaykum